hawl badan ayaanu ka wadnaa oon khawaariijta aan ka xoraynayno dhulka ay degan tahay Soomaalidu ama Jubbaland waxaana ku tala jiraa haddii Ilaahay idmo markaan taa ka xorayna in aan Soomaali weyn oo dhan ka xorayno khawaariijta Ilaahay nacay ee adoomada Ilaahayna ay naceen dadkii oo dhanna baleeyay waxaan jecelahay inaan ka dulqaadno wahabka saaran ummadda ururka koowaad ee daraawiishta wuxuu hadda marahayaa buundada la yiraahdo Farwaamo madaxa horena wuxuu joogaa ilaa meesha la yiraahdo Baar Sanguuni waana soconnaa haddii Ilaahay idmo sitimaanada nagu soo foolana waxaanu jecelahay haddaan Ilaahay ka helno inaan jilib iyo agagaarkeeda inta aan banayn karaa aan banayna haddii Ilaahay idmo waayahay bal deegaanadii u dambeeyay ee kooxaha nabadiidka aad ka saarteen haddii aad dadka u faahfaahayso iyo qasaaraha kooxda al-shabaab dagaaladii u dambeeyay ka soo gaaray khasaare badan oo ba'an baa ka soo gaadhay tuulooyinka ama meelaha aan qabanay waxaa ka mid ah sida Wirkooy meesha la yiraahdo Tawfiiq meesha la yiraahdo tuulada la yiraahdo bundada Farwaamo Wirkooy Baar Sanguuni dhulkaas oo dhan baanu gacanta ku dhignay insha Allah bismillaahi kariim inta dhulka dhimanna gacanta ku dhigi doonaa haddii Ilaahay idmo waayahay duqeymaha jiray oo lala beegsaday deegaanada wali al-shabaab ay ku harsan yihiin bal ciidamadii amisoomna way idinla socdaan qasaaraha duqeymahaas ka dhashay haddaad noo faahfaahayso shacabku wax khasaara oo ka soo gaadhay gaari suuya iyagu leeyihiin maalin dhaweyto gaari dad shacaba saaran yahay oo caruur iyo dad masaakiina ay saaran yihiin waxa ku dhacay suugooda kaas waxaan ka ahayn oo annagu waxba ma nageysan ayagana dhibkay geysteen wixii hore dadka ku hayeen kaas ka sii daran qasaaraha iyaga soo gaaray duqeymihii u dambeeyay aad oo weyn bay khasaare u soo gaaray hadii ma dhihi karo waxaan hadda inay ka tarabiil ku aasaan moogiye inay dad wuxuu aasi kara maaha waxa ka dhintay iyo dhaawaca gaaray